allow adigaan ku aaminayo awoodda sarraysa waa taade ilnaxariiseed allownahu eeg ilnaxariiseed allownahu eeg ilnaxariiseed allownahu eeg allow ibna aadan baa nahayo gefkeennu adduunka uu rogaye allow istikfaarta uu naga yeel allow istikfaarta uu naga yeel allow adigaan ku aaminayo awoodda sarraysa waa taade ilnaxariiseed allownahu eeg ilnaxariiseed allownahu eeg ilnaxariiseed allownahu eeg allow eelkiyo qabraa isuge markay ikhtibaar su'aashu adkaan afkayga ku beeg islaamnimaduun afkayga ku beeg islaamnimaduun الحمد لله على نعمائه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhammaan walaalaha muslimiinta ee ka soo qayb galay xafladan qiimaha iyo qaayaha mudan salaanta islaamka kadib waxaan idinku soo dhaweynaynaa maanta inaad nagala soo qayb gashaan xafladan aan ugu talagalnay qalinjabinta ardadii ama gabdhihii wax ka baranayay dugsiga alnuur ee xaafadda esbo iyo guud ahaan xafladii xiritaanka guud oo isku jira marka waqtigoo aada nooga daahay dhinaca farsamada awgeed insha allah wax badan ma sii oran doono barnaamijku wuxuu noo noqon doonaa sida soo socota aayadaha qur-aanka kariimka aan ku furi doonaa haddii ilaaha iraado kadib wax yar oo dulmara ayaan ku samayn doonaa madarasadan iyo heerarka ay soo martay salaada casar ayaan wada tukan doonaa insha allah salaada casar markaan tukanana waxaa majaraha la wareegi doona macalin xasan iyo gabdhihiisa oo ah dadkii hawshan xooggeeda ay maanta ku socotay in bal ay noo soo bandhigaan waxyaabihii ay barteen iyo wixii ay dadka maanta ugu talagaleen intaa kadib waxaa jiri doona kelmado waanooyin oo ay noo soo kala jeedin doonaan sheekh maxamed xasan shiikhow iyo sheekh cabdulqaadir isxaaq aadam oo labadaba kelmado kooban soo jeedin doona insha allah kadibna cuntadii ayaa noo xigi doonta marka barnaamijka sidaasaan u daadihin doonaa hadda waxaan kusoo dhaweynayaa anas maxamuud cabdi inuu noogu furo aayadaha qur-aanka kariimka ah ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب
ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. صدق الله العظيم. جزاه الله خير الجزاء أنس محمود عبدي. إلهي سبحانه وتعالى وحن كبرينا إن قرآنك أنت يرى أوهرتنا ودم يستره وناقص وكحفظنا وكسي وضه isagay inta la midka ahna ilaahay subxaanahu wa tacaala uu noo badiyo. intaa kadib ikhwaani, haddii wax yar oo kooban sida walaalaha iga codsadeen aan idin dulmaro, madarasadan maanta dadkeedii ugu horreeyey qur-aankeeda ay xafideen, ama jiilkii dambe aan idhaahdee iyadoo ay jireen jiilal hore uga baxay, laakiin jiilkii dambe ee hadda dadkii ugu horreeyay ay ka soo baxeen, waxaa xaafadan esbo ay ka bilaabatay 1994. heerar kala duwan ayay soo martay. xilli waxaa jirtay guryo lagu dhigan jiray oo waddanka markaa lagu cusbaa 94 aanay jirin dugsiyo furan, aanay jirin tasiilaadkan hadda la haysto iyo howlahan isku qoofalan ee ay dhib ahayd xitaa in la helo qof wax u dhiga. muddo markii guriga lagu jiray ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu gartay markaa in loo wareego meel yar oo aan leenahay wiigii hal maalin ama saacado labada maalmood oo weekendhiga ah. meeshaasoo ahayd meel ay ugu talagaleen dadka waddankan ku nool in dadka ajaanibta ah ay isugu yimaadaan oo ay nin walba wixiisa ku qabsadaan. waxyaabahan xusuusta waxaa ka mid ah in buudiste iyo mushrikiin iyo kuwo diin walba aaminsan ay naga hormari jireen, markay ka baxaanna annaga aan soo geli jirnay. heerarkaas ayay soo martay ilaa markii dambe ilaahi subxaanahu wa tacaala uu qadaray in la helo masjidka hadda xaafadda ku yaala ee masjid annuur ee xaafadda iska leedahay. halkaasoo markaa madarasadii markii la yimid ee caga dhigatay. taxfiidka qur-aanka maanta runtii waxaa aad wax maaragtay loogu farxo ah in 11 qof, weliba waa tiro aad u yar marka la fiiriyo Helsinki hadda masaajidka weyn ee Basila Al-Huda shalay tiro intaas la eg ayaa ka baxday. meel walba waa sidaas. isbedel fara badan ayaa moodaa in hadda uu ku dhacay qur-aan barashadii, waana nimcooyinka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu keenay iyo bashaa'irta muujinaysa in diintan loo soo noqon doono. nabiga calayhi salaatu wasalaam uu maaragtay noogu bishaareeyey in diintan ay jiri doonaan dad mar kasta u gargaara oo soo noqon doona. waxaa weeye carruurtan maanta gabdhahan geesahayga fadhiya maanta waa gabdhihii ku dhashay xaafadan ay hadda qur-aanka ku xafideen ku dhashay way. intooda badan qaar kaloo la da-a oo iyagu Soomaaliya kusoo dhashay way jiraan, laakiin intooda badan oo waddan gadaal ka yimid, intooda badan waa gabdhihii ku dhashay meeshaan way. qur-aanka maalinkii loo bilaabayay alif ba'da waa taagnay. waxyaabaha cajiibka badan waxaa ka mid ah marnaba laguma fakaraynin in sidan in la eg ay qur-aan u xafidi doonaan. macnaha waxa caado ahaan jirtay ama sidii ay 10 sano ka hor culimada looga caban jiray markii shirarka la yimaado, cunugii wuxuu dhaafi laayahay qad samic, wuxuu dhaafi laayahay, waxay ahayd juska saddexaad unbaa lagu jiirayn jiray, lagu noqon jiray. laakiin arrinkaas maanta waxay noqotay arrin la cadeeyey oo ilaahi subxaanahu wa tacaala uu nagu guuleeyey, dadaalkii waalidka, dadaalka macallimiinta khayr allah ka siiye, in la heli karo dadkii halkan ku dhashay ee laga yaabo qaarkood af Soomaaligooda xataa inaysan si fiican u aqoonin inay kitaabka xafidaan. in la heli karo haddii ay jirto doonis iyo rabitaan uu jiro, ilaahay subxaanahu wa tacaala uu la garab galo. iyaga hadhow ka sheekeyn doona. madarasada caruur fara badan baa dhigata oo isugu jira bilow kuwa dhexdhexaada, laakiin gabdhaha ayaa waxay yihiin maaragtay dadka ugu wanaagsan oo ugu sarreeya. runtii wiilasha iyo gabdhaha aniga waxaan aad u amaanaa markasta gabdhaha, maxaa yeelay gabdhuhu waa dadka hadda amoodid in ay dhinaca diinta ku firfircoon yihiin. wiilasha laftigooda dad badan oo khayr badan way jiraan, laakiin wiilalo waxaan leeyahay gabdhaha idinka sita. gabdhahaas maanta ujeedaan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu qadaray in qur-aankoodaas ay dhammeeyaan, weliba si wanaagsan ku dhammeeyaan. insha allah ayagaa noo soo gudbin doona macallinkooda xasan iyo ayaga wixii maanta halkan ay ugu talagaleen. ikhwaani, marka madarasada heerarkaasi soo martay, waxaa marka la rabaa qof kastoo muslima in uu ku baraarugo in barashadan diinta ay tahay shay waajiba oo qofka muslimka saaran, ilaahay subxaanahu wa tacaalana uuna weydiin doono. waxaa la rabaa marka dadkeenna waaweyn ee waalidiinta ah in arrimahaas aan taageerno oo aan xooggeenna ku bixinno, sidii ubadkeenna u jiri lahaayeen, sidii ciyaalkaasi wax ku baran lahaayeen, madarasooyinkii loo wada ceshan lahaa, maaragtay kaalmo dhinac kastale loola daba taagnaan lahaa. waa waajibna saaran kolley wixii waana ah culimmada geli doonta. marka waxaan leeyahay ilaah mahadiis weeye heerarkaas kala duwan oo aan hadba soo kufkacaynay in aan maanta heerkaas u istaagnay. insha allah sanadka soo socda markuu bilowdana in isbedel cusub lala bilaabo oo markaa bal dardar la geliyo xitaa kuwa yaryar ee hadda soo kacaya, haddii ilaah yiraahdo. sidaasaan ku talagalnay. marka insha allah waxaan leeyahay
waxaan leeyahay waalidiintii dhashay iyo idinkana waxaan idinku halmaynayaa ama hambalyo idinku soo gudbinayaa bishaaradii nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu noogu bishaareeyey inaad heli doontaan oo aad qiyaamaha maaragtay wax badan ay idin tari doonto wax laga baayac mushtarana waxa ugu fiican ilmaha aad dhashay marka insha allah intaasaan kelmadii kusoo koobaya haddii ilaa yiraahdo gabdhaha qur-aanka dhameeyey ee 11 gabdhood halkaa fadhiya magacyadooda waa kuwa insha allah suwayda aadan cabdi kharash amaal saciid muuse amuun cabdirashiid cabdullaahi bariira cabdilxakiim xuseen khadiija aadan nuur caaisha aadan nuur xafsa aadan nuur khadra cabdirasaaq sugulle iyo yaasmiin cabdiraxmaan axmed iyo najma aadan maxamed الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله فاضر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد runtii waxaa farxad badan mudan waxaa wax lagu farxo ah 11 gabdhood oo boqolkiiba 90 ku dhashay waddankan aan joogno in ay qur'aanka ku dhameeyeen ilaah kalaamkiisii subxaanahu wa tacaala min awwalihi ilaa aakhirihi waxaan leeyahay waxay nagu oogeen runtii xujo haddaan nahay waalid haddaan nahay macallimiin haddaan nahay arday xujo ah in qur-aanka la baran karo meeshii la doono hala joogo waxay nagu oogeen xujo qur-aanka in la baran karo ah dhowr sano ka hor waxaa laga yaabaa inaan aaminsaneen in ay tahay ciyaalka in la geeyo maka madiina riyaad si qur-aan loo soo baro laakiin alxamdulilah maanta waxaa farxad badan ah oo runtii aan ku faraxsannahay dhammaanteen inay gabdhihii qur-aankii dhammeeyeen xafladoodan u joogna maanta qul bifadli illaahi wabiraxmatihi fabidalika falyafraxuu qul bifadli illaahi wabiraxmatihi fabidalika falyafraxuu huwa khayru mima yajmacuun intan yar ayaa waxay ka fiican tahay dunida iyo waxa yaallo oo dhan huwa khayru mima yajmacuun macnaha runtii waxyaabaha aan arnay waxaad moodaa imtixaan rabbaani inuu yahay markaan soomaaliya joognay qofkii yaqaana qur-aanka waxaa lagu dhigan jiray looxa ma qaado bogga kitaabka ama qaado waxaa laga yaabaa markaad maalinta subaxii dhigato ood casrikii dhigato labada cashar oo la isku daray inay dhan tahay ama ka yar tahayba bog intaas ayaa innagoo xagga joogno oo iskuulla aanay ku jiran halkaas luqunta inoogu jirtay alxamdulilaah halkan waxaanu ku aragnay ciyaal ilmo yar oo halkan iskuul kaga dhegan yahay xaggan axwaal kaga dhegan tahay waddankan macaasida badan jooga in ay ka baxayaan 10 bog oo noloshoodii hal mar arkin miithaal yar acraaf iyo baqara 6 suurad ee qur-aanka ugu dhaadheer ee ugu adag ee ugu mutashaabahaad badan ee soomaalidu dhahdo 6 libaax aniga hortiina fadhiya waxay igu qaadatay 11 bilood waxay igu qaadatay 11 bilood inaan dhigto anigoo looxii Soomaaliya ka hadlaya acraaf kaliya waxay igu qaadatay 2 bilood halkan waxaa fadhiya gabar ama gabdho ku dhameeyay aqalla min shahrin bariira cabdixakiim khadra sugulle iyo gabdhaha kaleba waxay ku dhameeyeen 6 suuradood aqalla min shahrin xagee ka baxeen ma halkanay kitaabkii ka arkaan maxay rabu ugu qoran yahay qur-aankii ma hoostay ku sitaan
meel ay mareen ilaah bay yaqaanaa. 6 libaax iyagu waxay ka dhigeen 6 bisad oo kale. alxamdulilah waxaan leeyahay waa xujo ay nagu ogeen qur-aanka in lagu baran karo halkan horta. kow shalay ayay ahayd markii aadan qur-aanka dhammaynin, xifdintiisana berri baa naga xigta. man jadda wajad raadiya, meeshaad u maraysaan idinkaa taqaana. raadiya waa aakhiradiinni iyo raadiya, qur-aanka xifdigiisa raadiya. arrintaasi xil weyn iska saara, ha ka harina. 2 macno ahaan qur-aanka markaad barato kuu dhadhamaya. markaad macnihiisa haddaadan macnihiisa garin waa iska kalimaad carabi kuu noqonaya. runtii sidaas maaha qur-aanka, maaha kalimaad carabi oo jafaafa oo qallalan maaha. macnuu samaynaya qur-aanka macnihii markaad barato oo uu kugu socdo aayaddii way kuu hadduu cusub yahay, hadduu soo degay, shalay maantu ka macaan yahay, hadduu ka cusub yahay, hadduu ka fiican yahay, mar kasta waa fresh, mar kasta wuu macaan yahay. adiguu kula hadlayaa, ma ahun buug la xifdiyey oo macnuu samaynaya qur-aankii. markaad macnihii barato ayuu dhadhamaya macnihii raadiya. haddaadan macnihii garanaynin waxaad leedahay macnu waa halkan way isku noqonaysaa, tan mutashaabahaadkan halkan ay gelaysaa. waalidka waxaan leeyahay, waalidka gabdhahan dhalay iyo waalidka aan dhalinba waxaan leeyahay alxamdulilaahi, ilaahigii muslimiin naga dhigay. macnaha na fahamsiiyey ilmaha waxaa loo dhalaa inay ku anfacaan adduunyada markaad joogto. marka adigoo gurigaada joogto aad aragto gabadhaadiioo kuu xijaaban, qur-aanka akhrinayso adagoonan dirin, habeenbarkii soo kacayso qajafqajafteeda iyo salaadeeda aada maqlayso, halkaas laabta kuu qaboobaysaa. waa quratu cayn lagugu siiya adduunyada. qabriga markaad gasho adigoo hurdaya oo iska jiifo ayuu ajir kuu soo dhacayaa. dhag war xaguu ka yimid? caayasho aadanuu ka yimid, gabadhaadii. alxamdulilah. xaguu ka yimid? hebluu ka yimid. xaguu ka yimid? taasuu ka yimid. maskiin baa tahay qabri ku jira, ma tukan kartid, ma soomi kartid, ma salaadi kartid, waxba ma qabsan kartid. laakiin maxay ilaahay ku siiyey? waladun saalix yadcuu lak, ilmo baari ah oo kuu soo ducaynaya ayuu ilaahay ku siiyo qabriguu kugu anfacay. qabriga ka soo baxo qiyaamihii imow, dadkoo qaawan baa taaj lagu xiraya adiga. taajku muxuu yahay? ilaahay baa yaqaana. waa dhar qurux badan, wanaagsan, dahab iyo wax ka fiican laga sameeyey, laga keenay jannada. dadku waa qaawan yihiin qiyaamada sida la ogyahay. yaa dhar xiran? xaafidka aabbihiis iyo hooyadiis ayaa dhar xiran. injineerka aabbihiis uma xiri karo dhar maalintaas. waxaa ka jirto dhakhaatiirta ma awoodaan, laakiin arrintaasi waxay ku dhici kartaa 30 juz ilmahaada inuu barto ku dhaqmo. jazaakum allahu khayran, baaraka allah fiikum. ilaahay idin barakeeyo, xufaad wanaagsanaan rajaynaynaa. hanii'an lakum. جزاه الله خير الجزاء شيخنا ومعلمنا حسن معلن إلى خير هكسيو كالمدس إيواندس. هذا واحد باللابن دون إن شاء الله قبلها أيا نو ستين دون وحي برتين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس
فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. واتبع هواه فترداه وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكه عليها وأهش بها. الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم تقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني
أعذبه عذابا لا أعذبه الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. عن عظمة القرآن وفضله كثيرة معلومة. أيها الحضور الكرام، سأقرأ جملة من الأحاديث النبوية التي تبين. إلهي يا مهد يا مان مدن أو مان تسكين وذا كيني أنا كرون ميشان مركا لا إلهي وحن كبر يا إنو كلهم كان أوكلنا وذا كرسي أنا كرون ugu horeyntii dhalinyarada ayaa waxaa rabaa inaa u sheego qur-aanka oo u sheego waxyar inaysan adkaysanin qur-aanka ma ahan mid adag waa wax alla noo soo dejiyey oo nuur iyo hanuun ah qofkii adkaysta ayuu u adkaadaa qofkaan adkaysan uma adkaado hadda ka hor ayaa waxay iila dhigin jirtay hooyo aada u da-weyn dugsi hooyadaas sanad gudaheed ayay ku xafitay 15 juz maanta nagama helaayo qof dhalinyaro ku xafido qur-aanka 15 juz hooyadaas tii alla ayaa u timid ilaa ay geeriyooto way jeclaan lahayd inay wado qur-aanka miinta kasoo qayb galay meesha ayaa mar kale u mahad celinaa. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل القرآن هداية للناس. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأكرم علم القرآن فكان خير معلم فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المسلمون، القرآن هو كلام الله منزل غير مخلوق الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم باللفظ والمعنى. القرآن الكريم كتاب الإسلام الخالد ومعجزته الكبرى وهداية للناس أجمعين. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور ولقد تعبدنا الله بتلاوته آناء الليل وأطراف النهار. قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة. حقيقة فدقان لإيغو يري رير أسبا إيغو يرين أدعيان أغو فرحسان هاي ولينا حضور كانوا كله هدي أن حاضري ومر يلبو يسدح شلا أي هاد مران ديرين مران مدانو كله حاضري أو مسلمين كانوا سدانو كله وحفلين تهاي وحواناك سنقف إلهي سيي إنا ترى هذا إله أصنع بركي أن بوس كاسو كله إجارسي تاس أيال أقوليه وحا كلو شرعية ما دام حفلة دان محفل كان أو يا وح قيمي بدن وما دان إيجو داير أي وحصور بندقان ليابله inaan xersiyeyno oon isheena ka xijaabno oon isha kalena ka xijaabno maxaa looga baxsanayaa inaan aragno mowqifkan oo kale iyo qiraa'adu markay socoto inaan dhahno walowlaa id dakhalta jannataka qulta maa shaa allahu laa quwata ilaa billah inaanaan dhihin maaragtay kaliya qiraa'adu macaaneeda siday u akhrisay ma arkaysay imisay jirtay muxaadaradu siay u jeedinaysee inaan u xersi xirno waa laga maarmaan arrinkaas dad badan laakiin way dhibsadaan arrinkaas taa haddaan halkaa uga gudbo gabdhuhu qiraa'o badan ay soo bandhigeen qiraa'adoodii ayaan waxaan rabaa inaan tacliiqiyo qaabkii macallinkooda wuxuu soo baray iyo tajwiidkooda dee ma dhex gelayo howl maaragtay aan geli karo ma ahan aadaabna ma ahan xakamna ma ahi laakiin qur-aankay akhriyeen ayaan rabaa inaan waxyaale ka sardiyo gabadha koowaad waana tacliiqinayaa yacni 30 sekan ayaan ku tacliiqinayaa mid walba gabadha koowaad ilaahay barakeeyay waxay akhrisay qiraa'o macaan badan ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا أنعم أي دورتي حقيقة أن القرآن هو مائدة وحول باكجران هيلي باكجرا تفاحة كجرا عم باكجرا ومائدة بلارن نقوليها تفضل أولا هو فمتك قاضو مال عريرية أو نقوليها هاي روتك أن كوكو عدك قوصة معهن والله فصح مركب ماشي ضربتك أخري أيا ليري حرية الذين تبعد أخرده بالرب الناس أخرده إنه بغرة أخرده سيدنا عضي ويوم نحشرهم أي كبل وضي وحن تعليقين يا آيات لحقوا يكوك أنتي وإله يري وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب قفك ما يركا waxa lagu yaqaana samid xataa ma uusan gelin inkasto ilaahay ancaam oo dhan nooga dhigay isdaba dhigay lahwun walacib oo isku xijiyay oo san isdaba marin wixii ku yimaado dhan oo duca ku daray
oo ku daray maaragtay waxqabad ayaa hawshaan u timid. waxaan leenahay ilmihiinnu wejigiinna dhulka way ka qaadeen, kor ayaa madaxiinnu maanta yahay. ma xishoonaysaan, waad faanaysaan, maxfallada waa ka sheekay kartaan. ma isku mida odagii loogu soo bishaaray ama hooyadii loogu soo bishaareeyey gabadhii railwaygii xudunta dureed, dharkiina waaba ay siibto ilbaxnimo xumo u aragtay, meelaha ay ordaysay waalidka lagu soo yiraa iyo waalidka gabadhiisii leedahay awal iyo aakhir meeshii raba la iga weydiiyo way kanaa. labadaas qofood isku karaami miyay dareemayaan? isku karaami ma dareemayaan. midna waa ka dhuumanaya meelaha dadku isugu yimaadaan, midna waa faantamaya wuxuu leeyahay maaragtay kaalaya fiirsada. fa ayu lfariiqayn axaqu bilamni in kuntum mu'miniin, ayu lfariiqayni khayrun maqaaman wa axsanu nadiyan. isku mid maahan. waalidka waxaan leeyahay arrinkaa ilaahay uga mahad celiyey. fastabshiruu bibaycikum alladii baayactum bih. dhaha maaragtay lawla an hadaana allahu, maaragtay ma aanan hanuunin haddaan ilaahay nagu hanuunin lahayn dugsigan iyo hawshaan iyo dadka ka shaqeeya. saas ayaan leeyahay. waalidkaa waxaan leeyahay ilaahay idin barakeeyo, baarinimadii ilmihiinana adduunkaad ku kasbateen, inaad aakhiro ka helaysaan mid ka wanaagsan way ii muuqataa. waxaan leeyahay ubadka iyo gabdhaha hawshaa soo bandhigay, waxaan leeyahay waxa koowaad ood cilaajisaan ha noqoto ikhlaaskiinna. salafkiina waxay dhihi jireen ma aanan daaweyn cudurka weyn ikhlaas la'aan. ha noqoto qur-aankaad akhrinaysaan laa aabbaan loo akhrinayn walaa hooyo, waxaan loo akhrinayn codkeedu sidee yahay, aakhiradaadaad u akhrinaysaa iyo inaad muslimiinta ku anfacdo. hadafku kaas marka koowaad ha noqo. ilaahay markaa kadib uu kugu xifdinaya. waxaa tihin ahlulcilm, ahlulcilmi ayaa tihin binasri qur'aan, juhala maahidin culumaa tihin. bal huwa aayaatun bayinaatun fii suduuriha uutu lcilm aladiina uutu lcilma. ahlulcilmi weeye, inkastoo dacdoodu yar tahay haddana lama dhigi karo dad culamaa maahan, waa ahlulcilm. qur-aanka ayaa dilay ahlulcilmi. haddaba waa inaad cilmigiinna intuu idin farayo aad ka soo baxdaan. qaarkood inaysan qaan gaarina laga yaabaa, waxaana laysku raacsan yahay ilaahay markuu yidhi yaxya yaa yaxyaa khudil kitaabi huwa wa aataynahu lxukma sabiya. xukunkaas la sheegayo kitaabkii ayaa yaraan lagu siiyey. nin walba ee isagoon qaan gaarin qur-aanka xifiyana wuxuu la mid yahay midkii yaraanta xikmadda lagu siiyey. bal nin isagoon baqaan gaarin xikmad la siiyey, yaraantiisa iyo lixda markuu gaaro yaa la fadhiisanaya, yaa la hadlaya, yaa la murmi doona. wuxuu ilaahay yidhi watacaawanuu cala albiri waataqwa. haddii aysan ahayn ummad isku wada xiran oo ka wada shaqaynaysa sida ubadkooda ku meel maraan, hal cunug qur-aanka ma barteen. waxaana idinkugu filan 11 gabdhood ama 12 gabdhood sanadka haddaad soo saartaan. soomaalida filan oo dhan joogtaba xufaad ka dhigteen, reeras bay xaggan u socotaan, maasha allah xaggan u socotaan, maasha allah ayaan leena annagu si adisheen idinkugu dhicin. laakiin saas inayna caadaysana loo baahanya. waxaan leenahay waadinka arka hal wiil ma aragno, laakiin niyadda kama jirinayna sanadka kale nu qabanayna. sanadka kale 2014 bishaan oo kale ayaan u qabanaynaa. hadday la yimaadaanna wiilal badan tabiica wa nicm. haddii kalena waxaan leenahay meeshaad gabadha u doonanaysaan aad guursanaysaan adinkaa yaqaana. intaas ayaan ku soo koobaya. wasala allahu calaa muxamadin wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin. inta maanta isugu timid halkan mashaa'ibta sharafta leh, waalidiinta iyo caruurtooda, waxaan idinku salaamayaa salaamta qiimaha qaayaha leh. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. xafladan maanta qiimaha qaayaha leh aad u quruxda badan, waxaan u malaynaa noloshooda, waxaan u malaynaa inay tahay tii ugu horeysay xaflad noocaana inaan ka soo qayb galo. maanta ilaahay ii siiyey fursad inaan xaflad qur-aanka gabdha yaryar inay qur-aanka ku xifdiyaan aan ka soo qayb galo. aad iyo aad waan ugu faraxsanahay. run ahaantii xafladan markii ay dhahaysay qur-aanka la akrinayo shucuurtaydii aad iyo aad ayaa u kacday. waa ilmeeyey, aad iyo aad waan u ilmeeyey. gabdho yaryar oo qur-aanka xafidsan oo maasha allah oo jooga finland gaar ahaan esbo ayaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta halkan idinkala soo qayb galo. waxaa laakiin meesha aan la yaabanahay mashaayikhdan hore ay u sheegeen, waxaa halkan ka maqan doorkii wiilasha ayaa meesha ka maqan. waxaa maanta caddaatay marka baaritaan la sameeyey xataa iskuullada inuu wiilashii xagga waxbarashada ay kaga liitaan gabdhaha. waxaan u hambalyana marka gabdhaha Soomaaliyeed inay halkaas dagaalkooda ka sii wadaan ayaan u hambalyanayaa. waxaan marka maanta sii ogaaday oo kale masaajidka qaar allaha siiye
maanta natiijadii masaajidka inaan maanta garanayno waxaan maanta ii soo baxdoo kale in masaajidka howlaha lagu hayo uusan ahayn howlo sahlan in maanta miritaanka masaajidka oo halkan maanta aan isugu nimid dhammaanteen waalidiinta inay tahay arrin weyn waxaan u mahadinaa marka maamulka masjidka iyo macallimiinta ku hoolan inay ilmahooda ay baraan qur-aanka kariimka aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay teeda kale macallin suguul ayaa hore u sheegay wuxuu yidhi diinta waa loo soo laabanaa waa run diinta muslimka ah ayadaa loo soo hirin doonaa insha allahu tacaala waadna muuqataa maalinta maalinta ka dambaysa inay dadka soo muslimayaan oo arkaysaa waxyaala u weyn oo haddaba bini aadamka ilaahay siiyo waxaa ugu fiican diinta ayaa ugu wanaagsan maal wuu dhammaayaa lacag way dhammaanaysaa waxa ku raacayo adduun iyo aakhirada aad mataqaanaa kula socon doono waa diinta nabigeena calayhi salaatu wasalaam wax kale lama siin adduun waa la siin lahaa nabigeena laakiin waxaa la siiyey nabigeenna waxaa la siiyey qur-aanka ayaa la siiyey iyo faatixada walaqad actaynaaka sabcata min almathani waalqur'aan alcadiim nabiga ayaa la siiyey intaas ilaahay ma awoodo nabiguna uu ka dhigay ninka ugu wanaysan dunida halkaas waxaa ka cad in ay diinta ay wanaagsan tahay marka waxaan hadalkayga ku soo koobayaa iyadoo la yidhi waqtiga ayaa aad u yar waxaan leeyahay aad iyo aad dadaalkaas halkaas ka sii wada waxaan u ambaryana waalidiintii dhashay hablahan maanta qur-aanka qalinjibiyey oo korkeena qur-aanka ku dul aafiyey hambari ayaan u soo jeedinayaa iyo waalidiintii kaleba sidoo kale ka soo qayb gashay hambari ayaan u soo jeedinayaa kulligiin waa idin salaamay wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب إن شاء الله حبنا أنا ما دهايو هدي وعد أهيد هدي قرآن أخرس أهيد هدي محن كور هذا مهد علم واردين تي معلمين تي يضدك أهرمان سواء باب لا إهان لا يخرب على الله الله أنا وحن لا هاي أنا وقوها الله أفك واردين تا كان مد واردين تي عروض هذا القرآن كنا ما يسي كان مد ولي بقوة هذا maaragtay aan weli dhammaynin oo qur-aanka dhigto anoo afkooda ku hadlaya ayaa waxaan u mahad celinayaa dhammaan dadkii howlahan ka soo qayb qaatay oo ugu horeeya macallimiintii qur-aanka soo bartay carruurtayadaas ilaahay baa subxaana watacaala mahad iskale midda labaadna ayagaan mahad ballaaran u celinayaa ilaahay subxana watacaala ajir ha ka siiya xasanaad waayo haddaan la iskaalmaysanin soomaalidu waxay tidhahdaa gacmahooda jir bay wax ku gooyaan iskaalmaysi macallimiintii iyo waalidiintii iyo maamulkii ayaa lagu soo saaray carruurtan hadday qolo ka mida meesha ka bixi lahaayeen oo boos lagu dhigto keliya haddii la waayi lahaa oo qaybta maamulka xitaa waxaa ma suura galeen haddii macallin la heli waayi lahaa ama macallin isla jiri lahayn waxa lama barteen marka iskaashigaas ayaa intaa lagu soo gaaray mar labaad ayaa waxaan u mahad celinayaa dadka waalidiinta oo carruurtan juhdiga badan kusoo bixiyey waxaan ilaahay subxana watacaala uga rajaynayaa iyagana kuwii qur-aanka ku sugnaado oo xifdigiisa iyo ku dhaqankiisa ilaahay subxana watacaala ku sugo waxaan kula dardaaramayaa juhdi badan baad soo samayseen qur-aanka in la xifdiyo wax macallimiintiisnimaa ka warbixisay yuuna idinka fakanin nebiga sal ly slam qur-aanka wuxuu ku sheegay neef geel ah oo inta xarig lagu xiray la sii daayey rasuulka asxaabta weydiiye wuxuu yidhi ma sii taagnaanaya mase wuu soconaya markaas waxay yidhahdeen wuu iska tegaya qur-aankuna sidaasoo kale weeyaan marka qur-aanka intaa lagu soo dhimanaya adinkuna aad soo baranayseen haisdhihina waad qalin jebiseen oo waad ka gudubteen marka wax badan baa soomaalida waxaa lagu arkay qof dhaho anigu qur-aanka 4 jeer baan dhameeyey laakiin aan kicin karin marka waad iloobaysaan meeshiina waad ku noqonaysaa wixii juhdi aad soo bixisayna waxay noqonaysaa waxaan waxba noqonin dadaalkii halkiina ka sii wada inaad qur-aanka xifdidaan dadka soomaalida waxay dhihi jireen oo maaragtay qur-aanka yaqaan adeer weli ma kitaabku kaaga jira macnaha waxay ka wadaan ma kitaabaadba qur-aanka akhrisaa adigoo intaa la eg ceeb bay ahayd marka hadda kitaabka iyo qur-aanka in ka gelin kor ka qabta insha allahu tacaala ardayda intaasaan leeyahay waalidiintii juhdiga kusoo bixisay ilaahay subxaana watacaala ajir iyo xasanaad ha ka siiyo horey baa loogu mahad celiyey kuwa hadda dhiman oo caruuraha oo dugsiga mar baa xasuustaa meeshaan iyo dugsiyadan waqtiyada lasoo aas-aasayey ayba carruurba jooginba dhowr xabaa loo dhigi jiro yar yar haddana maasha allah waad arkaysaa waxa buuxo wayna sii socon doonaan marka kuwa hadda ku xigana ha ka ficil qaateen kuwa hadda dhameeyey ama wiilasha ha noqdeen ama gabdhaha ha noqdeen ha isku dayan sanadka dambe hadda 14 weeyo sanadka dambe inay 10 kale ku darmatay 24 noqdaan kan kusii xigo ay sii bataan insha allahu tacaala waalidiintana intaasaan kula sii talinaya kuwa ayna weli qur-aan ka dhamaynin aad baan kugu mahad celinayaa meeshana way kulushahay warkuna wuu badnaa muhiimadeeda waxaa weeyaan
inaan dadkaas guud iyo macallimiintii iyo waalidiintii anigoo ku hadlaya afkooda inaan u mahad celiyo. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. إلهي بقى محادث كله سبحانه وتعالى ماشي يسوق كاني وحنو مهد علينا يا علماء يرتي علماء يمودي أنا علماء هين وكحهم هاي ما دام ندوكسيا وقت فترة عصومر المعلم كاها أيام مارت أدوية الكوريان شرفتك kasoo qayb gashay aan ka mid noqday. waxaan leeyahay shalay waxaan joognay sidaan oo kaleeto xaflad ah oo masaajidka alhuda baasira lagu qabanayo oo taxfiid alqur'aan ardayda quraanka dhamaysan 12 arday. maantana waa inteedii wey oo isba halkaa waxaan leeyahay waxaa ka soo hoyday guul ballaaran oo ummadda islaamka ah khaasatan ummaddan ku hadasha luqada Soomaaliga الله سبحانه وتعالى حكمت بو كاني ودمدان قربها رجال بيتك ان قران كاقون ان حجاب كاقون جلباب كاقون خميس كاقون صلاه مساجد كاقون هذا لوغو دراي تحفيظ القران يا حفلته سي لوغو دراي waxaan xusuustaa maalmaha kamida nin carab baan qaaday 42 sano ayaa wadankan Finland joogay buu yiri markii ugu horeysay aan arkay gabar muslimada oo xijaab qabta wuxuu yiri 3 saacadood baan ilmeynayay buu yiri waana daba socday buu yiri railway station kan ku arkay buu yiri waxaan ka baqay buu yiri boolisku inuu mutaabaceeyo ee waxaan weydiin lahaa meesha ay degan tahay baan weydiin lahaa waxay noqotay buu yiri Soomaaliyeed bay noqotay buu waxaan ku joognay buu yiri ummad carab ah wadankan baan deganaan jirnay ma aanan aqoon masaajido musallayaad ma aanan aqoon fadligaas ummadda Soomaaliyeed baa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala gaar u siiyay xikmad buu inoo keenay wadankeena xikmad buu u burburiyay war badan looma baahnee waa in gacmaha la isqabsadaa la isu duceeyaa culimada iyo maaragtay ragga soo saaray ducaada ee soo saaray ilmaha loo duceeyaa caruurta loo duceeyaa halkan waxaan maqlayaa waxaa laga sharqaminayaa kaalintii wiilasha ayaa maqan insha Allah ilaahay dabki sida ay sheegeen rag iiga horeeyay macallin sheekh oo carabka ku dhuftay sanadka soo socda insha Allah 2014 ka tartanku waa wiilasha weeye aaba kastana waxa laga doonayaa wiil ama laba wiil baa laga doonayaa ninkii wiilkiisa diyaarinaya gacanta ha taago hala keeno aabayaasha wiilasha hala keeno wiilashu taxfiidka ha ka qayb jiniba Allah ka xifdiyo waalidiintood Allah ha cizeeyo taashka aakhiraad Allah ha u saaro ciziga adduunna Allah ha siiyo inta xafladan soo hagaajisay intii soo maamusheen dambigood iyo kii waalidkood Allah ha dhaafo inteena ka soo qayb gashayna dambigeena iyo kii waalidkeena Allah ha dhaafo hadal jacayl baa hadalka igu dhibteen baan u malaynayaa waa iska reeb mudugeynaya waa iga qabsada subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaam ala mursalin insha Allah Abdulqaadir asagu anigii quraanka xifdiyay ku dhaqmay ilaahay ku dhigaya inantii quraanka ku soo xifdisay ku dhaqantay hal ku dhigaya bal xaaladan hadda la joogo iyo meelo iyo wadamo noocaana qofkii quraanka ku xifdiya oo haddana indhihiisa qarsada oo haddana quraankii ku dhaqma haddana qiyaam la imaada haddana sunantii ku fuliya wuxuu ka ajar badan yahay qof diyaarul islaam iska jooga. musnad abi daawud بسند حسن رسولك عليه الصلاة والسلام وحل لقورنا يا إنو يري من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس لجام من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن في يكون الدقمة والد كيسي مالنت قيامة وحلول لبسيا تاج أيا لول لبسيا رسولك عليه الصلاة والسلام تاج كأعبائي هو اللي قلنا ضوءه أحسن من ضوء الشمس قرحي سي إليسكي سي إفتينكي سوحو كقرحوني هاي قرحذا إفتين كذا أيو كقرحوني هاي ودك وودك يعني في الله يسحر وطف وودك لك الإمام يعني قفل ولا وقت عفشان يحكم هاي الحمد لله ماشي أنا هذا إحنا هاي أيام لفر الغد يكون هذا حفرنا مدة صدق هاي 8 سنة يفرنت هاي
dad badan ayaa isu soo dhiibay, dad badan baa ka qayb qaadan jiray. markaskan hadda socda waxaan leeyahay Soomaalidu in badan wuu iska socdaa, wuu furan yahay, wuu iska furan yahay. marka in badan waxaan leeyahay muslimiinta Soomaali ayaa ka faa'iideysta, laakiin waxtarkeeda boqolkiiba waa hal baan leeyahay insha Allah. waxaan si gaar ah waalidiinta isku soo dhibay xafladan suuro geliyeyna in aan maanta halkan isugu nimaano oo juhdi badan geliyey. khaasatan waxaan usii mahadcelinay aniga gabdhihii labada beri ku dhafraayay cunto karinta oo jiif iyo joogba u diiday, waqtigoodana ku dhameeyey inay mataqaanaa xafladan maanta ay sidan mataqaanaa u qurux badnaato. anigu waxaan idin leeyahay walaalayaalow, gacmaha halis qabsado, halis cafiyana. wax kasta khaladaad waa dhici karaa, qofka markuu shaqo bilaabo baa khaladaad ka dhici karaa, qof aan waxba qaban khalad kama dhaco. annagu haddaan khalad ku jirnay ama khalad naga dhacay hanala cafiyo, cafis baan idin weydiisana waalidiinay. mar walbana idinkaan idin taagannahay, siduu macna sugula sheegayna waxba kuma qaadan aniga cabdirasaaq meeshan. nuur xafsa xafsa gabdhihii maanta lama garanayo, aniga waa kala garanaya, indhahan ka aqaan aniga ima fakanayaan ilaa yaraana la joognay. xafsa waa xishoonaysaa ayaanaa ku siinaya. jazaaka allah khayr. rasan rooxa joog. cabdiraxmaan yaasmiin axmed amaal سعيد موسى عبدي سويدة هذا عبدي سويدة هذا عبدي عبد الله أمون عبد الرشيد عبد الله هذا سيدي فينش كذا يبغى هاي معلم كذا تويستك معلم كذا خديجة هذا النور خديجة يري ما شاء الله الله بركة خضر عبد الرزاق سهولة نجمو هذا محمد نجمو وقتنا أكتر فقيدة كذا سمعني جزاك الله خير بريرة عبد الحكيم بريرة ما شاء الله ما شاء الله انت سوا قيمتي أبدا وزمن الكاسة كبرى أمال سعيد الله أديقان وآمنا يو أود السمي سواتاده إلنا حريسك اللونه إيك إلنا حريسك اللونه إيك إلنا حريسك اللونه إيك الله ابن آدم بانها يو قف كانوا أدوك ورقايا الله استغفار تؤنقايل الله استغفار تؤنقايل الله أديقان وآمنا يو أود السري سواتاده إلنا حريسك اللونه إيك إلنا حريسك اللونه إيك إلنا حريسك اللونه إيك الله إلكيو قبرا السوقي مركي اختبار سؤاشو أتكان أفكيغا كوبيك إسلام نمدون أفكيغا كوبيك إسلام نمدون